السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaa mar kale daawadaha qaaliga ah mowduucana maanta wuxuu noqon doonaa fluctuance waxa la yidhaha ama daacada. Sidaan wada ognahay daacada waxaa lagu tacriifiyaa hawo gasho neef mareenka qofka bani'aadamka kadibna muddo badan iyadoo nuuc kale ah soo baxdo ama ur inay leedahay laga yaabo. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan fluctuancega ama daacada. Marka hore haddii aan wax ka sheegno calaamadaha lagu yaqaano daacada waa hawo soo gudubto xubnaha qofka ee neef mareenka. Wind is normal ayay dhahaan daaco hawo caadi ah oo normal ah laakiin marmar ayaa waxaa laga yaabaa inay aad u badato ay qofku ku noqoto maxaa la dhahaa wax dhibaato ah. Waxayna ku xiran tahay numberiska maxaa la dhahaa cunooyinka aad cunto oo kala duwan, tirada cunooyinka aad cunto oo kala duwan. Dadka qaarkiis hawadaas way kusoo gudubtaa iyagoo maxaa la dhahaa wax dhibaato ah aan ku haynin, maalinba maalinta ka dambeysana normal asoo ah ayuu dareemayaa. Laakiin laga yaabee dadka qaar inay ku noqoto wax frequency ama degdeg ah oo ay dhibaato u geysato oo bulshadii uu ku dhex jiri waayo. Daacada marka calaamadaha lagu yaqaano haddii aan sheegno waxaa ka mid ah badanaa qofka in hawo ay kasoo baxdo impression aa la yidhaha fluctuancy. Sidoo kale smelly flutes waxa la yidhaha ayaa jiro oo ah aaryo maxaa la dhahaa oo xoogaa shiirshiiraysa oo qofkii kasoo baxdo. Sidoo kale awood inay kusoo dhaafto maxaa la dhahaa hawo xoogan oo daacadii ay tahay mid awoodeedu ay xoogan tahay. Sidoo kale qofka inuu dareemo discomfortable oo maxaa la dhahaa mar walba markuu daacsanayo oo cilad micnaha lasoo gudboonaato. Sidoo kale qofka in maxaa la dhahaa cuncun uu ka dareemo mindhiciraha weliba qof kuwa la yiraahdo bowlka oo large intestine-ka. Maxaa sababa marka daacada? Daacada waxaa sababa maxaa la dhahaa waa qayb ka mid ah daacada hawo taasoo normal ah markii dheefshiidka la sameynayo. Sidoo kale gaas ayaa lasoo saaraa ama hawo ayaa lasoo saaraa qaabab kala duwan oo jirka bani'aadamka u soo saaraa. Daacada qaybaheeda marka ama typeska daacada waa maxaa la dhahaa in maxaa la dhahaa ay ku saabsan tahay qaabka cunada aad cunto ayay u kala qaybsantaa. Cunooyinka aad cunto markaa ama cunooyinka qofka bani'aadamka uu cunayo oo kala duwan ayaa laga yaabaa in maxaa la dhahaa ay yacni kala duwanaansho u keenaan qofka daacada uu daacanayo. Waxyaabaha ugu muhiimsan daawada haddii aan sheegno oo ku saabsan daacadana sabab u ah waxaa waaye maadada la yiraahdo lactose-ka in ay u dul qaadan waayaan ama awood ay u yeelan waayaan mindhicirahaagii markii ay dheefshiid sameynayaan. Dabcan the body's inability to digest particular sugar foods in cow's milk. Sidoo kale maadada la yiraahdo lactose-ka ee ku jirto caanaha lo'da ayaa jirku markii uu dheefshiid sameynayo mindhicirihii ay u dul qaadan waynayaan taasoo saaraysa marka awood badan oo gaas ah ama hawo badan ayay mindhicirihii ku sababaysaa. Tanina waxay dhacdaa markii ay yacni bacteria gasho mindhiciraha taasoo saameyn ku yeelato sokortii jirka ku jirta gaar ahaan sokorta markii dheefshiid lagu sameynayo. Halkaas ayaa waxaa ku imaanaya marka in gas production uu ka dhaco oo hawo badan lasoo saaro halkaasna ay ka timaado in large intestine-kii u dul qaada waayo lactose-kii kadibna maxaa la dhahaa halkaas ay ku badato waxa loo yaqaano fluctuance ama daacada. Fluctuance-ga ama daacada waxaa jira wax la yiraahdo loud fluctuance, smelly fluctuance iyo excessive fluctuance. Saddexdaas nooc ayaa complicationska ay keento ah. Marka qofka markii uu mid ka mid ah dareemaba saddexdoodu wuxuu noqonayaa unpleasant. Qofka bani'aadamka ah ma ku faraxsano ama qof faraxsan ma ahanayo, wuxuu dareemayaa inuu xoogaa caajis badan dareemayo markii ay ku badato waxa loo yaqaano daacada ama fluctuance-ha. Daacada mar walba sida caadiga ah waxay ka timaadaa dheefshiidkaaga oo problem ku yimaado ama digestive problems, digestive disorders markay dhacaan, cudurro markay ku dhacaan dheefshiidka. Load fluctuance maxaa la yiraahdaa marka? Load fluctuance waxaa loo yaqaanaa waxaa sababa in murqihii ama maxaa la dhahaa
large intestine-ka kuwooda waaweynay ay ka buuxsanto hawo iyadoo xirayso maxaa la dhahaa ilaa iyo dabadii qofka ay xiramayso. sidoo kale smelly flutters maxaa loo yaqaanaa gaaskii lasoo saaray ee hawadii lasoo saaray ee soo saareen mindhicirihii oo markii bacteria fermentation lagu samaynayo ama bacteria jirka ku jirta iyo cunadii isla falgalayaan ayaa waxaa ka dhalanaya wax ur ah oo shiir ah. halkaas waxaa ka imaanaya nooca loo yaqaano smelly flutters, waxayna ku xiran tahay cunada aad cunto ayay ku xiran tahay. excessive flutters maxaa la yidhaha iyadana marka excessive flutters waxaa loo yaqaanaa tan waxay yacni ku lug leedahay ama ay sababtaa in qofkii hawo badan uu laqo oo jirkiisa hawo badan ay gasho isagoo cunayo cunooyinka loo yaqaano high fiber foods ama cunooyinka diirka badan leh sida cunooyinka qamadiga iyo masagada iyo galleyda iyo waxyaabaha la xiriiro. sidoo kale excessive flutters waxaa keeni karo lactose intolerance, in maadadii caanaha ku jirto lactose-ka la yiraahdo ee jirka ama digestive system-kaaga uu dulqaado waayo, ama waxaa kaloo sababi karo qaar ka mid a cudurrada ku dhaco dheefshiidka. marka waxyaabaha marka lagula taliyo qofka si excessive flutters uga badbaado ama daacada maxaa la dhahaa ama hawada saa'idka tirada badan uga badbaado waxaa ka mid ah inuu yacni the amount of intestinal gas by making dietary adjustments and seeking medical advice, inuu dhakhtar aado kadibna yacni meelaha cunooyinka uga imaan karo hawo badan markii aad cunto jirkaaga soo galayso oo isdhahayo cunooyinkaasna inuu iska yareeyo. intaas ayaan kusoo koobayaa. wixii aan maxaa la dhahaa qalday iga sax. هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.